xubno wasiira oo ka tirsan waqtigii uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad doon cusub lagu wareejinayay arday wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera. doontan cusub oo ay ku deeqeen shirkadda Somaliland Fire Fishing oo fadhigeedu yahay Denmark. doontan oo ay si wadajir ah uga gudoomiyeen shirkadda maamulka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha Somaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera. munaasabadani oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha Somaliland ee magaalada Berbera. مسؤولينتي كسو غير شيء مناسبة داسي سيدا وزير كوزارة كالوميسية يا خيرات كبدها سوماليلاند علي جامع فارح براد وزير كاريماه بدها سوماليلاند علي محمد وران عدي يا وزير كوزارة كاريماه دي بدا سوماليلاند محمد بيحي يونس وسوى الجرا وقمها الأرية شركة سوماليلاند فاير فيشن ويدو كد غيدون تاني بربرة في مدبدا معرفة تناسو ودني وحن رجينا هنا احنا كتر الدونتو أرضيدا تباركودا oo ay kabtanadu u fududaan doonto sida maaragtay hawsha ay ardayda ugu tababarayaan aad baan ugu mahadcelineynaa Fire Fishing ugu mahadcelineynaa wax ka badan insha Allah waan ka rajayneynaa aad baan u mahadsanyihiin waxay projectyo fara badan ee dalka Soomaaliland ka qabtay ahna dawladihii ugu horeeyay Soomaaliland caawiye haday tahay dawladda Denmark runtii faraha waxa ku yaala kalluunkii marba ka xanaaqo markaa nimcada dhulkeena maanta waxa la saaxiibay dhulkeena nimcada Ilaahay noo barakeeyo baddu waxay ka mid tahay meelaha ay noo diin laakiin muddo albaabkeeda furayno ay u horeeyaan our friends from Denmark إن شاء الله الله ينوكله خير كذا الله ينسيه وسلام. مرة لبعض إن آديات مو مهضنقو شركة NGO جن Fire Fishing Somaliland آديات وذكرنا إنه هولجري كل قاتي رميه كل لها بدأ كلوميسيا إن عصريان وما كانوا تشتي بلها بدنا اللوقة بوشيو سيدا هوشو صعطو وأنا نؤمسنا إنه كلون في هاي وحياة هو وين إنه غني كنا هاي هذين نقطة ماركت كاوين إثيوبيا أما مالك على الجيك الرد ذكرنا إنه برتو كلون كعنوس سيسا هي مالجيش جيسا كقبس جيسا إلى هنا وحنكبر إنما ذا أرض ذا إتعام عندنا وجرتا إن قا خير قبل نقدان وضوضن كان يدل كان هرمر جالسيا مثل نقصاري مع بطة وأنا نهسيه المرة بعد والله نحوش إلى سيدي دولتنا مع وحبة ما ترتي واليوم ما حدنا قينا. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda Somaliland Fire Fishing iyo maamulka jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera waxayna ka warameen ahmiyadda iyo qiimaha doontani u yeelan doonto ardayda wax ka barata jaamacaddaasi iyo sidii doontani ay ardayda ugu dhiirigelin lahayd una jeclaan lahaayeen barashada kheyraadka badahooda. I'm very happy to give this small token of our appreciation to the Marine Academy, and we hope that this will be able to, in a small way, assist you in educating people in the fishing industry. To the Somaliland Fire Fishing for giving us this boat, which will be very, very important for us in order to teach our students how to fish, how to go to sea, and that will be very, very good for the students. ugu dambeyntiina waftigan waxay kormeero kala duwan ku soo mareen qaybaha kala duwan ee wasaaradda kalluumaysiga gaar ahaan talaagadaha qaboojiye kalluunka marka badda laga soo saaro iyo sidoo kale sariibada cusub ee loo dhisay kalluumaysatada. doontan cusub ee lagu wareejiyay ardayda jaamacadda culumta badda ee magaalada Berbera ayaa noqon doonta mid wax badan ka tari doonta tababarka iyo baahiyaha ay ardaydani u qabeen inay helaan qalab ay ku tusaale qaataan waxa ay baranayaan. Xarid Xasan oo telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV.